dadweynaha ku dhaqan magaalooyinka Gabiley Wajaale iyo magaalooyin kale oo hoos yimaada gobolkani Gabiley ayaa iskugu soo baxay salaadii roob doontii ee saaka subaxnimadii iyagoo Ilaahay uga baryayay in ummadiisa soo waraabiyo dadweynaha aad u tiro badan oo horkacsan wasaaradda diinta iyo qaafta maamulka gobolka Gabiley iyo sidoo kale maamulka degmada ayaa iskugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee magaaladaasi Gabiley waxaana halkaasi ka hadlay waxgarad iyo dadweynaha aad u tiro badan iyo culumaa wadiin oo Ilaahay halkaasi ka baryay inuu Ilaahay ummadiisa abaarta ka soo jabiyo xaaladda ay dadkeenu ku sugan yihiin iyo sababta halkan ina keentay oo ognahay in abaara adag ay dalka guud ahaan ka jiraan gobolkeena uu ka mid yahay gobolada ay abaartaasi saameysay oo xaqiiqatan dhammaantii ay ka siman yihiin dadka gobolka ku nool miyiga oo dhan hadday oogada tahay iyo hadday waqooyiga tahayba xaalad adag oo nololeed baynu ku nool nahay oo dadkeenu ku jiraan xaaladaas waxay u baahan tahay walaalayaal gurmadkana cid ay noo gurman kartaa waa Ilaahay inaynu Ilaahay barino oo inaynu Ilaahay u noqono ayaynu u baahannahay waqooyiga imika wiigii hore awdal oo kale dhimasha la soo sheegay innagana qayla dhaanta imika imanaysa waxa weeye dadkeenii waqooyiga u qululay inay noloshoodu iyagana dhibkiisa iyo roobkiisii ayaynu ku baryaynaa waxaan u malaynayaa in badan oo aynu barwaaqo ku soo jiray oo aynaan garanayn inaynu maanta garanayno barwaaqadu waxay ahayd oo aynu ku xamdi la qiweynay oo aynu Ilaahay muxuu ahaay caasinay oo aynu amarkii Ilaahay ina siiyay iska dhagatiray kabacdina ciqaabtiisii iyo wixii aynu gacmaheena ku kasbanay maanta lanagu ciqaabayo Ilaahay waxaan leenahay Ilaahay waanu dareenay dhibtii aanu geysanay ee abaarta darteeda inoogu timid Ilaahay oo toobaan leenahay Ilaahay raxmaadkaaga noo soo dadajibaan waxaynu isugu soo baxnay inaynu Ilaahay barino Ilaahay raxmad ka barino Ilaahay roob ka barino Ilaahay inuu abaara inaga soo jabiyo aynu ka barino waayahay baryadu marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala la baryayo baryadu waa amal khayriya oo Ilaahay loogu dhawaanayo amal kasta oo khayriyina wuxuu u baahan yahay waxyaabo la waafajiyo roob doon baynu doonaynaa inaynu Ilaahay roob doon ka barino waxa loo baahan yahay Ilaahay wuxuu subxaanahu wa ta'aala isunaha aan idin naxariiste waxa la inooga baahan yahay dadka abaaraysan ee gobolkeena ee waxa weeyaan dhibaatadu soo gaadhay geesta kalena magaalada Tog Wajaale xarunta magaaladaasi Wajaale ayaa isku soo baxeen garoonka kubadda cagta Mujaahid Mahdi Cali ee magaaladaasi Tog Wajaale kumanaan dadweynaha oo salaadii roobtoonka halkaasi ku tukanayay oo ay horkacayeen wasaaradda diinta iyo qaafta Somaliland waxaana halkaasi ka hadlay culumaa wadiinka ku dhaqan degmadaasi Tog Wajaale oo Ilaahay uga baryay in ummadiisa raxmaanku soo waraabiyo dadka abaartu saabisana Ilaahay ka soo jabiyo badana duruufta ka bixi karin inaan la qaybsano run ahaantiina waa waqtigiino abaara inagu xeeran ama maahe abaara inahay xoog loo wax weeyaan aad amarkaagaysa marka aad ka baxdo magaalada ama magaalada duleedkeedaba ama magaalada dhexdeedaba dad bay abaartu ku saameysay oo dadkii xoolaha nool ku tiirsanaa ama ha ka ganacsadaan ama ha dhaqdaan ba iyagaba waa saameysay reer Wajaale ugu soo baxnay aynu u soo banaan baxnay iyo dhibaatada jirta aynaan hore arag Ilaahay ay naga saaro Ilaahay sida ugu dhaqsaha badan ay naga saaro roobdoonta Allah ay naga aqbalo qalbigeena Allah isku soo jeediyo Ilaahay isaga aweyno waaxidii wax badan baynu halkaas soo fadhiisanay aanu Ilaahay sidii ay nagu soo fadhiisanay roobka inoo siino Ilaahay maanta ay noo siiyo dhulku wuu farabadan yahay dadku kale kuma xidhna dad iyo duuyo iyo xayawaanka nool iyo cid walba dhibaatada soo gaadhay way farabadan tahay waana arrin aad iyo aad u adag oo wiigan haddii Ilaahay aanu roob na siino dib inta ka badan aynu dareemi doono Ilaahay ay naga soo furto taas baa ku dhaafaya kale waxa weeye
waa Nimcaan Dheeg Ibraahin iyo Mixiyadiin Maxamed Daahir Gabiley.